dadka noocaas ugu sameeyay oo awal faarax fataato oo kowkaya laba odayaashii shanta ahay oo beel koonfur oo soo saxiixay dilka Guraceel wiilkaygu ku dhintay sababta ay ugu ahaayeen manka hadda gudoomiyaha noo ah laba nin baan nahay cayr baan isla sheeganaa degmada Guraceel bay noogu maamulaan hogaan bay noogu ahaayeen حق وحن أقول لهم وحين نقول عينين كتيران يوضان ينصر نقدان يقول سمايل عدالة حمو ورد كي يجيبوا كل لي دارت عيدا مدى وهجاميني نبضون ندا أي عدالة فرديدي وحي عدالة فرديدي نحل بان ندا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد هل كان وحن ربائنا واحد له دقمدا Guraceel oday ku nool baan ahay Sheekh Maxamed Sheekh Axmed baa la yiraahdaa ku dhashay galgaduud galmudug qaasatan degmada Guraceel intaan kula soo ekaaday oo ku soo barbaaray waxa igula dhacday xaalad aad iyo aad ee xanuujiday dhibaato badan soo marsiday ayaa igula dhacday awal Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa ii qadaray madiidani قدرت إلهي سبحانه وتعالى أو أنيجا يوكاني مديدني سببتنا وحى إسكالها يدد قدرت أسوحي تهاي إنا لله وإنا إليه راجعون وحى كل انتي دقمدا Guraceel عرد كيجي أحمد محمد الشيخ أحمد وحى سببه هاي دل كيسة دقال كي معمول كدولة دقال مدوك مركي كسوق عادي دقمدا Guraceel ayadoo kula jirto nimankii sufal magac baxay dagaalkaas oo ku dhintay wiilkaygu waxa dilay ciidamada dawladda oo ka socday galmudug oo madax u ahay madaxweyne qoorqoor degmada Guraceel ninkii nagu matalayay gudoomiyaha nooga ahay wuxuu ahay faarax fataato dagaalka hogaankiisa oo waday maamulka galmudug waxa nagu noo ahay oo noo dhaxeeyay rad waxa la yiri ratiya ninka wada hogaanka u dhaxeeya annaga galmudug waxa noo dhaxeeyay oo nagu matalayay odayaasha beel koonfure ayaa nagu matalayay ahna nabadoonada beel koonfure dhuusamareeb bay tageen dagaalka Guraceel bay soo saxiixeen waxaan iri wiilkaygii dhimashadiisa maadaama dawladdu ay dishay adinku aad soo saxiixdeen dagaalka guddoomiyihii faarax fataato shacabka degmada Guraceel oo hogaaminayay waxaan rabaa in la iga qanciyo odayaashii waxay igu jawaabeen dagaalka aan anagu Guraceel u soo saxiixnay in shacab ku dhimanayo waan ogeyn shacabkii ku dhintana ma sheeganayna ay igula hadleen waxay igu sameeyeen cadaalad xumo guddoomiyihii faarax fataato dib iguma soo noqon kama hadlin wiilkaygii waxa weeyaan ima caawin waxaan u ahay shacab waxa uu yahay gudoomiye degmada Guraceel nagu maamula dagaalka hogaankiisa oo watay curadkaygii buu ku dilay ciidamada uu hogaaminayay alaan kaanu maamul noogu yahay dib iguma soo noqon saanoo kale ayaan waxaan ka hadlay soonqaadkan kii ka saddex ahay ayaan waxaan uga hadlay baraha bulshada hadalkayga dhigay anigoo ka hadla codsi aan u gudubsaday xildhibaanka galmudug gudoomiyaha degmada Guraceel faarax fataato gudoomiye ku xigeenka odayaashii beesha oo sida xun ay igu maamuleen haddana igu jawaabeen anigoo ka hadlaya madaxweynaha codsanaya codsigeygii wax laga qabtay uma jiraan wax igu soo laabtay uma jiraan sidii baa la iiga tagay waxaan ahay nin aniga maarta waxa weeyna islaama diinta islaamka ku dhashay ku abtirsada ilaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam tiriskiisu gaara ka bilaabo sheekhi aniga ay dhalay aabahay markaan ka sii bilaabo ku sii geeyo ilaa mashaayiqdii Sheekh Abdul Qaadir Jilaani iyo waxa soo dhan sii marsiyo ayaan abtiriskayga waxaan ku geynayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ninka noocaasa ayaa oo magaalada Guraceel u dhashay ee cadaalad xumadaas tirsanayaan ahay intaasna wuxuu cadaalad sameeyay ku waayay nabadoonada ay cadaalad faridiiday waxa ay cadaalad faridiideen xildhibaanada waxa ay cadaalad fadi waayay gudoomiyihii ninka la yiraahdo degmada Guraceel gudoomiye ku xigeenkii ninka la yiraahdo madaxweyne qoorqoor waxa ay cadaalad falax waa waayay nimanka horta marka hore
nimanka hadda gudoomiyaha noo ah laba nin baan nahay cayr baan isla sheeganaa degmada Gurceel bay nagu maamulaan hoggaan bay noogu ahaayeen xaq waxaan ugu lahayn wixii nagu dhacay inay ka tiiraanyoodaan oo noo soo noqdaan iguma soo noqon waxa ay cadaatay inay ugu dileen alqiyaas amal xukuumatu askariya inay ugu dileen wallahi aan ku dhaartay waan soo manay ilaahay dartiisaan u soo manay caawa waxa aan ka hadlaa inaan qolana ku xaqirayn qolana aan ku dhaafay aan ku dhibaataynayn wixii ugu dhacayaan rabaa meeshan inaan uga hadlo ummadda Soomaaliyeed ay dhageysato meel kasto ay joogto waxa ugu sameeyay gudoomiye Faarax Fataato oo shacabkiisii ahay dilkii wiilkayga igu sameeyay alqiyaas amal xukuumatu askariya ugu sameeyay ninkii carabiga yaqaan meeshaas akhrisan doona dadka kale hadaan u sheegana waxa weeye alqiyaas wuxuu qiyaastay amalkiisana oo ka helay xukuumatu askariya ciidanka asagu oo hoggaanka ka yahay xukuumatu askariya oo ugu dilay waxaan codsanayaa dawladda Soomaaliya aan ka codsanayaa oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan ka codsanayaa xildhibaanada dawladda dhexe Soomaaliya aan ka codsanayaa waxaan ahay nin Soomaaliya madaxda Soomaaliyeed ay madaxweyne u tahay dhibkaasna ka tirsanaya degmada Gurceel waxaan ka codsanayaa dadka maamulka igu sameeyay ee cadaalad falidiid dawladda Soomaaliya maxkamad cadaalad inay igu furtaan ka codsanaya taasaan codsi ka ahay waxaan codsi ka ahay cadaalad xumo la igu sameeyay nabadoonna waa ku waayay hadduu ila dhashay hadduu waaridii ahay hadduu maarto waxa weeyaan kaleeto hadduu xildhibaan yahay hadduu wasiir yahay hadduu gudoomiye u ahay cadaalad xumo igu sameeyeen dibna iguma soo noqon sidii geeridu igu timid dadkii wiilkayga la dhintay oo shacabka ahay oo reer Gurceel waa la qaabilay waalidoontoodii magoodii ay qaateen dawladda siiday xildhibaanadoodii yaa qaabilay gudoomiyaha Faarax Fataato isaga qudhiisa qaabilay anigana dib la iguma soo noqon waa waayay odayaal dhaqameed ka hadla waa waayay gudoomiye ku xigeen ka hadla waxa igu kalifay baraha bulshada 3-4 sano anigoo maarto waxa weeyaan wiilkaygii mootaya waxa igu kalifay oo aan la seexawaayo inta la qafiifay wax kala maahan xaaladda xanuun kala waayo waxaana la yiri nin wixii ku dhacay nin waa u diimooyihiin baa la yiri ummadda Soomaaliyeed qoftii hadda ka hor ay soo martana xanuunkaas way ogaata way garanaydaa qofkii hadda ay u dhiman tahana way ayada arka doonta oo ku imaan doonta walaalayaal waxaan codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto oo hadalkayga maqlaysa oo xanuunka aan ka hadla maqle inay ii sheer gareydo hadalkayga oo ila diqato taas waan codsanayaa mar labaad waxaan codsanayaa dawladda Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaan ka codsanayaa dadka noocaas ugu sameeyay oo awal Faarax Fataato oo kowkaya laba odayaashii shanta ahay oo beel koonfur oo soo saxiixay dilka Gurceel wiilkaygu ku dhintay sababta ay ugu ahaayeen ayaga sabab u ahay inay u ahaayeen anaga cadaynayna waxayna u qabaan inay banaanka ka yihiin in dawladda Soomaaliya maxkamad sharciye ay soo saarto oo sharciga maxkamadda islaamka oo dawladda ay hor keentana dawladdan ka codsanaya waxaan kaloon mar saddexaad codsanaya culimada Soomaaliyeed oo meel kasta joogta oo dal iyo dibad ku nool oo isku abtirsano oo isku culumanahay oo diintuna walaalayda xanuunka noocaas inay ka qiiraanyoodaan ay istaagaan ka hadlaan xaaladeyda si qiirale uga hadlaan qof kasta oo ka iftoo karta oo islaam ah wax garataa inay ila wadaagto xaaladeydana ka hadlaan sidaas baan waxa weeyana aan ka codsanayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.